dowladda sacuudi carabiya oo qayladhaan afka furatay xuutiyiinta yeman oo weeraradii ugu ba'naa ka wado qaybo ka mid ah waddanka yeman gaar ahaan gobollada ay markaasi joogaan ciidamada iyo dowladda ay taageerto sacuudi carabiya. waxaanu idiin soo gudbin doonaa xogo xasaasi ah oo ku saabsan xaaladda dhabta ah ee ka taagan maanta qaybo ka mid ah waddanka yeman. xuutiyiintu weli way sii hanjabeen, hanjabaad culus ayayna hawada u mariyeen dowladda sacuudi carabiya. sidoo kale waxaanu idiin soo gudbin doonaa ninkii Trump ahaa oo aad u carooday, wuxuuna ka carooday hadal ama xog sir ah oo ka baxday saraakiil ka tirsan ciidamada Maraykanka. haddaba muxuu yahay ama maxay tahay xogtaas sirta ah ee Trump uu aadka uga carooday, sidoo kalena uu ku hanjabay in uu tallaabo ka qaadi doono cid kasta oo ku lug leh bixinta xogtaasi sirta u ahayd Maraykanka, taasoo weliba uu sheegay madaxweyne Trump in ay ka dhigayso Maraykanka mid daciif ah. waanu idiin soo gudbin doonaa daawadayaal intaa warbixinteenna aynu ku gudaa jirno. qodobadaas iyo kuwo kale oo xasaasi ah oo ku saabsan xaaladda bariga dhexe ayaanu idiin soo gudbinaynaa, balse marka koowaad soo dhawow muuqaalka laygaree siina shargaree si dad badan ay xogteenna u gaadho hagaag. xuutiyiinta yeman ayaa weeraro ay u adeegsanayaan gantaalada balastikada ah iyo sidoo kale diyaaradaha droniska ee isqarxiya ayaa waxa ay ka wadaan qaybo ka mid ah waddanka yeman, gaar ahaan dhulka ay markaasi xukunto dowladda yeman ee markaasi taageerada ka helayso sacuudi carabiya. dowladda sacuudiga waxay sheegtay in duqeymaha ilaa hadda ay wado markaasi ay wadaan xuutiyiinta in ay ku markaasi dhaawacmeen 11 qof. 11kan qof ee sacuudiyan ayaa ku jira, masaari ayaa ku jira, bakistaan ayaa ku jira, xitaa yemaniyiin ayaa ku jira. marka waxay leeyihiin nimankii duqeymo aan loo meeldayin ayay ka wadaan gaar ahaan gobolka dhaca xuduudda ee najaraas. sidoo kale gobollo kale oo badan ayay ka socotaa duqeynta sida markaasi xoguhu ay ilaa hadda ay markaasi muujinayaan. ninkii Trump ahaana waa soo hanjabay. Trump wuxuu taagan yahay inta horta Trump intaan u gudagelin xuutiyiinta yeman badda cas waxay ku hayaan culays aad u xoogan marka loo eego dhaqdhaqaaqa sacuudiga carabiya iyo sidoo kale wadamada xulafada laab. waxay sheegeen in ay beegsan doonaan goobo cusub oo hor leh oo sacuudiga uu leeyahay. haddaba duqeynta maanta oo jimco ah ka socoto qaybo ka mid ah waddanka yeman waxay tusaale u tahay in kooxdan ay taageerta Iiraan ee xuutiyiinta yeman in aysan dab yarshadeynin marka loo eego awoodda iyo saameynta ay ku dhex leeyihiin badda cas. wadamadii badda cas adeegsanayay ee sacuudiga xulafada la ahaana cabsi xoogan ayaa hadda soo food saartay. haddii aynu eegno dhinaca Maraykankana, ninkii Trump ahaa waa soo hadlay, weliba isagoo caraysan oo wuxuu soo hadlay aan dhag la qabto lahayn. wuxuuna ka carooday xog sira oo ka soo baxday taliska ciidanka Maraykanka oo laga bixiyay oo ahayd in rasaastii Maraykanka uu ku dagaalgeli lahaa inay dhamaatay. arrintaas Trump waa u ka xanaaqay sababtoo ah ninkii Iiraan u hanjabayay ee lahaa Iiraan miiska wada hadalka ha timaado, tallaabaan qaadeenna, intaa ka baxeenna, ninkii waxaa la leeyahay rasaas maba hayaba uu kusii dagaalgalo. arrintaas aad ayuu uga carooday, wuxuuna sheegay in ay Maraykanka ka dhigayso mid daciif ah xogta macnaha la bixiyey iyo sirta baxday. wuxuuna sheegay in ay ku raad joogaan ama ay ku daba jiraan cid kasta oo markaasi sirtaasi bixisay. ciddii lagu helana ee ku caddaatana in tallaab degdeg ah markaasi laga qaadi doono ayuu sheegay Donald Trump. sababtoo ah nimankii Iiraaniyiinta ahaa waa loo geli laayay hawli marinka Hormuz, inkastoo saacadii lasoo dhaafay duqeymo la isku dayay in lala beegsado goobo aad ugu dhow marinka Hormuz, laakiin ay ka jawaabeen Iiraaniyiinta oo ay qabteen badi gantaaladii halkaasi loo waday. Trump marka hadda xaaladda ku xun haddiiba rasaastiina ay ka dhamaatay sababtoo ah haddaysan rasaas dhamaan sidaas muuse u caroodeen.
arrinta carada keenta waxay tahay waxaa la sheegayaa wax ka jira macnaha iiraanna rag soo dhow ma ah maraykanka way jahwareerisay maraykankii isagayba buuq ku furtoo jahwareersan oo nimankan meel uu u raaco iyo ilaa hadda garanaya markastuu isdhow nimankan waa jilceen waaba kasii daraanba xaaladda bariga dhexe waxay maraysaa bariga dhexe macluumaadyo deg deg ah iyo wararkii ugu dambeeyey si halkan maalin walba aad ugala socotid fadlan nagu soo biir muuqaalkan like garee siina sheer garee daawade